ma ka warhaysaa in aakhir zamanka ay iman doonaan dad loo bedeli doono daanyeero iyo doonfaaro? intaasoo kaliya looguma soo koobi doonee dhagaxaan ayaa lagu rushaynayaa sidii qowmuluud oo kale, dhulkana waa lala jarayaa. arrimahaasoo dhanna nebiga ayaa wuxuu inoogu sheegay in ay ka mid yihiin qiyaamada in ay soo dhowaatay, calaamadihii sheegayay. axaadiis saxiixa ayaan soo qaadan doonaa nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wassalaam. haddaba walaalkayga walaasheeda, su-aasha waxaa waaye, dadkaas yay yihiin oo arrimahaas lagu samayn doono? ma dadkoo dhanba mase waa dad gaar ah? sidoo kalena waa maxay sababta keentay in qaabkaas loo cadaabo? su-aalahaasoo dhan ayaan ka jawaabi doonaa hadduu ilaahay ka dhigo. ee walaalkayga walaasheeda, ila soco. xadiisku wuxuu dhahayaa qiyaamada ma dhici doonta ilaa dhulka lala jaro qabaa'il say u dhan yihiin, qofna aan laga tegi doonin. sidoo kale qabaa'il kale ayaa jira, ayagana lagu rushayn doono dhagaxaantii qowmuluud oo kale. hooyadan caaisha radiallahu canha waxay dhahaysaa, qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, yakuunu fii aakhiri alumma khasfun wa maskhun wa qadf. qadfigana waxaa lagala jeedaa dhagaxaan ayaa looga soo rushayn doonaa samada. markaas ayay hooyadan caaisha waxay weydiinaysaa nebiga su-aal, waxayna dhahaysaa, yaa rasuul allah, anuhlaku wa fiina asaalixuun, miyaana la halaagayaa iyadoo ay nagu dhex jiraan dad saalixiin ah? markaas ayaa nebigu wuxuu dhahayaa, nacam, idaa dahura alkhabath. okay, haddaba waa maxay sababta? maxayna sameeyeen dadkaas? xadiiska uu soo warinayo cabdullaahi bnu cumar ee dhahaya, innahu sayakuunu fii ummatii maskhun wa qadf wa huwa fi azandaqiya waalqadariya. azandaqiya maxaa lagala jeedaa? waa dad mulxidiin ah oo qarsanaya inay mulxidiin yihiin, dadkana usoo muujinaya dad diinta faafinaya inay yihiin, kadibna diinta qaabkay ayaga doonaan u faafinaya. tan labaad ee alqadariye la dhaho waa maxay? dadkaas oo uu nebiga ku tilmaamay inay yihiin alqadariya. alqadariya nebiga wuxuu kala jeedaa dadka beeninaya qadarta ilaahay, waxay doonaan ayay iska dhahayaan oo qadarta ku saabsan. tusaale ahaan, roob ayaa meel ka da-ay, dhulgariir ayaa meel qabsaday, amaba dabeel ayaa meel ka dhacday. waxay dhahayaan cimilada ayaa waxaan sameeyey oo qadartii ayay beeninayaan. roobna way beeri karaan hadday doonaan. intaasoo keliya ma aha, nebiga xadiis kale ayuu wuxuu ku sheegayaa dad iman doona aakhiru zamanka, layashrabanna unaasun min ummatii alkhamr yusamuunaha bikayri ismiha. arrimahaasoo dhan dadka samaynaya, xadiiska qaybta ugu dambaysa fiiri, wuxuu dhahayaa, yakhsifu allaahu bihim alard wayajcalu minhum qiradatan wakhanaaziir. ayuu dhahayaa ilaahay dhulka ayuu la jarayaa, wuxuuna ka dhigayaa daanyeero iyo doonfaaro, ayuu dhahayaa nebiga. dadkaas maxay sameeyeen? waa dadka khamriga cabaya oo u bixinaya magacyo aan magaceeda saxda ah aan ahayn, si ay u cabaan mar walba oo ay doonayaan. sidoo kale xadiis kalena wuxuu ku dhahayaa nebiga calayhi salaam, idaa daharat alqiyaanu waalmacaasif wa shuribat alkhumuur. halkaas waxaad ka garanaysaa in ay caadi iska noqonayso cabidda khamriga iyo sidoo kale dhagaysiga heesaha iyo duhuuru lqiyaan, oo ay macnaheedu tahay xafladaha heesaha, bandhig faneed iyo magacyo badan oo kala duwan ayaa loo yeelayaa si ay caadi u noqoto. haddaba walaalkayga walaasheeda, fiidiyowga aad ayuu iigu yaryahay, kuma soo koobi karo xadiis kasta iyo macnihiisa oo dhammaystiran, laakiin waxaan u malaynayaa inaad kala saari karto dadka la dhaho azanaadiqa iyo alqadariya. azanaadiqa waxaa waaye dadka mulxidiinta ah oo haddana diinta yaqaan. alqadariya sidoo kale ayagana waxaa waaye dadka wax walbaba oo dhaca oo uu ilaahay sameeyo qadarta aan aaminsanayn, oo u salaynaya cimilada iyo macno kale iyo magacyo kale. aad baan kuu salaamaya, khayr badan ayaan isku ognahay, waana kulmi doonaa.